markii ay sii socdaan Ryu wuxuu si lama filaan ah u xasuustaa in wiifarooyinkii weeraray Behemothkii ay ka yimaadeen dhanka ay hadda socdaan. wax yar kadib waxay arkaan wiifarooyin ku cunaya bahal ay dileen. Abel wuxuu sheegayaa in aysan la dagaalami karin. Wuxuu sharaxayaa in hal wiifar si caadi ah loogu baahan yahay ilaa 20 dagaalyahan khibrad leh si ay u dilaan, welibana khasaaro weyn baa dhaca inta lagu jiro. Ryu wuxuu qabaa in xataa haddii ay isku dayaan in ay iska dhuuntaan, ay weli la kulmi doonaan wiifaro kale lama fogaado dagaalka. Ryu wuxuu isweydiinayaa haddii ay sahlan tahay in lagu weeraro wiifarada iyagoo dhulka jooga. Abel wuu ku raacsan yahay. wuxuuna sheegayaa inuu si fiican u adeegsado seeftiisa marka ay dhulka yihiin. Markaas ayuu Ryu hore ugu baxaa weerarka. Wuxuu soo saaraa falaaro baraf ah wuxuuna ku weeraraa wiifarooyinkii. Abel wuxuu raacsadaa weerar gaar ah oo ah total impalement. laakiin qaylada wiifarooyinkii waxay soo jiidataa kuwa kale. Markaas ayuu Ryu adeegsanayaa weerar baraf ah oo ka yimaada dusha sare si uu u dhigo dhulka. Abelna si dhaqso leh ayuu u dhammaystiraa. Kadib dagaalka waxay soo urursadaan dhagaxyadii sixirka. Abel wuu la yaabay sida ay si fudud ugu guulaysteen, halka Ryu uu isweydiinayo haddii Abel uu rabay dagaal nafta halis gelinaya si uu dareen dagaal u helo. Markaas ayaa la arkayaa koox kale oo wiifarooyin ah oo soo dhowaanaya. labadooduba way isdiyaariyaan. waxay og yihiin in aysan door kale haysan oo aan ka ahayn inay la dagaalamaan si ay u sii wataan safarkooda. Markii ay dhammaan wiifarooyinkii ka takhalusaan, waxay gaarayaan erifka buurta, waxaana hortooda ka muuqda magaalo bini'aadam ku nool yahay. Ryu wuxuu dareemayaa kalsooni dagaal, wuxuuna leeyahay xataa haddii ay mar kale wiifarooyin la kulmaan uusan dhibaato ka qabin. laakiin Abel wuu la yaabaa, wuxuuna sheegayaa in sidaas loo fikirayo ay tahay nacasnimo. wuxuuna leeyahay in aysan weligood mar dambe la kulmin noocaas bahallo ah ay ugu fiican tahay. Abel wuxuu qirayaa in ay la yaab ahayd sida ay u heleen dhagaxyo badan oo sixir ah oo laga soo saaray wiifarooyinkii, balse si lama filaan ah ayuu joojiyaa hadalkiisa. wuxuu ogaadaa in ay aad ugu sii socdaan waqooyi. Inkastoo Abel uusan si fiican u garanayn halka ay hadda joogaan, Ryu wuu ka walaacsan yahay in ay si khaldan ugu dhowaadeen boqortooyada Debi. laakiin Abel wuxuu isla markiiba sheegayaa in aysan suurtagal ahayn sababtoo ah Debi Empire waxay u jirtaa waqooyi dheeraad ah. Ryu wuu neefdaayaa, taasoo ka dhigaysa Abel mid isweydiinaya sababta Ryu u neceb yahay magacaas. Ryu wuxuu leeyahay inuusan wax shakhsi ah ka qabin boqortooyada, laakiin wuxuu keliya neceb yahay magaca, taasoo Abel u arko mid la yaab leh. Markaas ayuu Ryu arkaa waddo ku baxaysa dhulka dhexdiisa. Abelna wuxuu sheegayaa in waddadaasi ay u socoto bariga ilaa galbeedka. wuxuu si taxadar leh u fiiriyaa agagaarka, wuxuuna garanayaa deegaanka. Ryu wuxuu arkaa Abel oo fikir ku maqan, wuxuuna weydiinayaa haddii wax walba fiican yihiin. Markaas ayuu Abel sharxayaa, haddii aan u raacno waddadan dhanka galbeed, waxaan dhowaan gaaraynaa magaalada Kiladi. Ryu arrintan wuu ku farxaa sababtoo ah wuxuu si aad ah ugu riyoonayaa inuu seexdo sariir dhab ah. laakiin Abel wuxuu islahaa, miyaadan doonayn inaad sii dagaalanto wiifarooyin kale? Ryu wuu qoslaa, wuxuuna leeyahay labadaas waxba iskuma lahan. Abel wuxuu sheegayaa in cuntada magaalada Kilati ay tahay mid macaan, wuxuuna ku boorinayaa Ryu inuu isku dayo. taas ayaa ka dhigaysa Ryu mid aad ugu faraxsan booqashada magaalada cusub. dhowr daqiiqo kadib, labadooduba waxay soo gaaraan magaalada Kiyat, waxayna u dhaqaaqaan maqaayad u dhow. intay halkaas fadhiyaan, Abel wuxuu soo jeedinayaa in Ryu isu diiwaangeliyo ururka sahamiyaasha, laakiin Ryu wax fikrad ah kama hayo waxa uu yahay ururkaas. Abel wuxuu sharxayaa in diiwaangelintu ay noqonayso aqoonsi rasmi ah, taasoo Ryu siinaysa xorriyad uu ku galo magaalooyin iyo dalal isagoo aan wax khidmad ah bixin. Abel wuxuu sheegayaa in markii ay magaalada soo galeen, isaga Abel uu u dhaqmay Ryu sidii damaanad qaade, wuxuuna bixiyey hal lacag ah si uu albaabka uga gudbo. Ryu wuxuu kaftamayaa isagoo leh, ma qorshahaaga qarsoon baa ahaa inaad i addoonsato? Abel wuu sii wadayaa inuu Ryu ku qanciyo inuu ku biiro ururka, wuxuuna sharxayaa in ay halkaas ka iibin karaan dhagaxyada sixirka iyo walxaha laga helo bahalada qiimo fiican. haddii kale, Ryu wuxuu noqon doonaa inuu barto kimistariga sixirka si uu walxahaas u isticmaalo, taasoo noqon lahayd dhib weyn. Ryu aad buu ula yaabay, wuxuu weydiiyaa, kimistariga sixirka ma jiraanba dunidan? laakiin waxa uu si xitaa la yaab leh u noqdaa markuu adeegsaduhu keeno baaquli bariis kari ah oo kari leh. wuxuu isleeyahay, sheekooyinka isekay dunida kale lagu dhoofo. halyeygu wuxuu badanaa ku safraa meelaha fog fog si uu kari u helo, laakiin halkan durba wuu ka helay. Abel wuxuu weydiiyaa, maxaad hoosta uga hadlaysaa? Ryu wuxuu leeyahay, waxba, wuxuuna qaadayaa ilkiskii ugu horreeyey ee cuntada. laakiin kariyadii aad bay u macaan tahay. wuxuuna cunaa dhammaan ilbiriqsiyo gudahood. Ryu wuxuu dalbanayaa baaquli kale, wuxuuna Abel weydiinayaa haddii magaalada laan ay kari sidan oo kale ah leedahay. Abel wuxuu xaqiijinayaa in ay jirto, wuxuuna ku faraxsan yahay in Ryu uu cunto u bogay. wuxuu qirayaa in xataa isaga laftiisa karidu ay aad u macaan tahay xitaa maalinta xigtay. markii ay magaalada ka baxaan, Ryu weli wuu ammaanayaa karidii habeenkii hore. wuxuuna Abel ka codsadaa inuu u sheego macmacaanka ugu fiican ee magaalada laga helo. Abel wuu yaabaa, wuuna garan waayaa sida uu uga jawaabo, wuxuuna leeyahay, waan ka fikirayaa. intay socdaan, waxay maalmo yar u socdaan si ay u gaaraan magaalada laan, ugu dambeynna waxay ka arkaan fogaan magaaladaas. markay gaarayaan iridda magaalada, waardiye ayaa garanaya Abel, wuxuuna leeyahay dadka oo dhan way ka walwalsanayeen tan iyo markii uu bilaashka uga maqnaa magaalada muddo bilo ah. Abel wuxuu sharxayaa in Ryu uu ahaa sababta uu ku soo laabtay badbaado. waardiyihii wuxuu si diiran ula gacan qaadaa Ryu, isagoo aad ugu mahad celinaya badbaadinta saaxiibkiis. Abel wuxuu mar kale bixiyaa lacagtii gelitaanka isaga oo mar kale noqday damaanad qaadaha Ryu. waardiyuhu wuxuu weydiinayaa haddii ay si toos ah ugu socdaan ururka sahamiyaasha, wuxuuna sheegayaa in saaxiibada Abel ay magaalada ka maqan yihiin, laakiin markay soo laabtaan si weyn ayay ula yaabi doonaan markay arkaan isaga oo soo laabtay. markay gudaha u galaan magaalada, Abel wuxuu soo jeedinayaa in ay si toos ah ugu tagaan ururka si ay u diiwaangeliyaan Ryu.
Abel wuxuu leeyahay isagu wuu caawin doonaa Ryu si uu kor ugu dhaafo darajada bilowga ah. Ryu wuu la yaabaa wuxuuna weydiiyaa waxa ay darajooyinku yihiin. Abel wuxuu sharxayaa in sahamiyaasha cusub ay bilaabaan darajada F, laakiin haddii xubin darajo B ah ama ka sareeya uu ku damaanad qaado, waxaad ka bilaabi kartaa darajo E ama xitaa D. Ryu si degdeg ah ayuu u fahmaa, taasoo muujinaysa in Abel uu yahay darajo ka sareeya B, taasoo ka dhigaysa mid caan ah. Taas ayaa Ryu ku farxad gelisa. Laakiin Abel wuu xishoodaa wuxuuna si degdeg ah u beddelaa mowduuca. Wuxuu sii wataa sharaxaadda wuxuuna leeyahay haddii darajadaadu sarayso waxaad heli kartaa howlo fiican oo aad abaalmarin wanaagsan ka helayso. Isagoo qoslaaya wuxuu sii raacaa, laakiin Ryu lacag dan kama qabto hadda maxaa yeelay waxay dhagaxyada wiifarooyinkii lacag badan u beddeli doonaan. Ryu wuu yaabay wuxuuna isweydiiyaa dhagaxyada sixirku ma qiimo badan ba? Abel wuxuu sharxayaa in ay runtii aad u qiimo badan yihiin, haddii dhagaxyo badan hal mar la iibiyo xitaa suuqa way burburi kartaa. Laakiin wuxuu leeyahay ururka sahamiyaasha wuu fahmayaa sida loo maareeyo arrintaas. Ugu dambayn waxay gaarayaan xarunta ururka sahamiyaasha halkaas oo xoghayahanina ay la yaabto in Abel weli nool yahay. Dhammaan sahamiyaashii kale ayaa isugu yimaada agagaarka Abel. Ryuna wuxuu garanayaa in Abel si weyn looga yaqaan halkaas. Ryu wuxuu isleeyahay aan bannaanka u baxo, hawadu waa nadiif, isagoo si niyad sami ah u siinaya Abel fursad uu ula sheekaysto asxaabtiisa. Laakiin intuu bannaanka taagan yahay, gabar elf ah ayaa soo agmartay. Waxay indhaha ku dhufatay Ryu waxayna aragtay dharkiisa oo ah midka boqorka jinka. Waxay u sheegtay in haddii uu xiran yahay dharkaas, uu qasab tahay inuu si weyn ugu soo jiitay boqorka jinka. Ryu jawaab sax ah ma siinin, markaasay gabadhii tiri waan mashquulsanahay, bal aan mar kale is aragno. Iyadoo si degdeg ah u tagtay. Daqiiqada kadib Abel ayaa Ryu dib ula soo laabanaya gudaha ururka, wuxuuna dadka u sheegayaa in uu badbaaday keliya sababtoo ah Ryu, wuxuuna sheegayaa in Ryu uu noqon doono sahamiyaha cusub ee ururka. Abel wuxuu rajaynayaa in dhammaan dadka kale ay Ryu si wanaagsan ula dhaqmi doonaan. Ryu wuu farxay inuu noqdo xudunta dareenka maadaama dadka kale ay ammaanayaan sidii uu Abel u badbaadiyey. Sheekadu way socotaa. Ryu wuxuu bilaabayaa nidaamka diiwaangelinta, waxaana Abel leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku taliyey inuu darajada D ku bilaabo. Laakiin Nenah wuu la yaabay waayo tani waa markii ugu horreysay oo qof ka tirsan kooxda Abel uu qof kale u taliyey. Abel wuxuu leeyahay Ryu aad buu u karti badan yahay. Nenah ma diidana, balse wuxuu sheegayaa in sida ku qoran xeerarka ururka ay tahay in la keeno caddayn jir ahaaneed oo muujinaysa awoodda Ryu. Abel wuxuu leeyahay waxaan rabay inaan arrintan kala hadlo madaxda ururka. Markaas Nenah waxay tagtaa si ay ula socodsiiso madaxda ururka codsigooda intay sugayaan qol shir ah. Markii Nenah warwacan la soo laabato, madaxii ururka Guildmaster si degdeg ah ayuu ugu soo ordaa wuxuuna aad ugu faraxsanaa inuu arko Abel isla indhaha. Wuxuu aad uga walaacsanaa maqnaanshihiisa, kadib wuxuu eegayaa Ryu wuxuuna isbarayaa isagoo leh magacaygu waa Humaglaas, madaxda ururka sahamiyaasha ee Laan. Wuxuu u mahad celiyaa Ryu taasoo Ryu dareensiisay xishood, wuxuuna si fudud u leeyahay waqtigii saxda ahaa ayaan meesha joogay. Abel wuxuu u sheegay Humaglaas in uu doonayo inuu Ryu u taliyey si uu kor ugu dhaafo darajada. Markaas ayuu Humaglaas weydiiyey caddayntii ma keenteen. Abel wuxuu si kalsooni leh u sheegay in Ryu uu isagana ka xoog badan yahay. Abel wuxuu soo bandhigay dhagaxyadii sixirka, waxaana si degdeg ah u muuqata in midabkooda cagaaran uu muujinayo in ay yihiin curiyad dabayl ah. Humaglaas wuxuu ka dareemayaa cabirka iyo iftiinka dhagaxyada in laga yaabo in ay yihiin dhagaxyadii wiifarooyinka, taasoo Abel xaqiijinayo. Humaglaas wuu yaabay wuuna adag tahay inuu rumaysto in ay keli ku ahaayeen dagaalkaas, waayo dagaalka wiifarooyin badan wuxuu u baahan yahay ciidan dhan. Wuxuu cabsadaa haddii bahaladaas ay weeraraan magaalada in la baabiin karo. Laakiin Abel wuxuu dejinayaa wuxuuna sheegayaa in dhammaan bahaladii ay kaga hortageen waqooyiga buuralayda Malefe. Ryu wuu la yaabay markuu maqlo magaca buuralaydaas. Abel wuxuu sheegayaa in markii ay heleen waddadii u socotay Kiyat uu garanayay halka ay joogaan. Humaglaas wuxuu sheegayaa in dadku rumaysan yihiin in aysan jirin qof si badbaado leh uga gudbay buuralaydaas, xitaa sahamiyaasha khibradda leh ma galaan meeshaas ilaa ay jirto sabab aad u weyn. Markuu hadda arkay caddayntii jir ahaaneed ee awoodda Ryu, Humaglaas wax diidmo ah muu haynin, wuu ogol yahay kor u qaadista darajada. Markaas waxaa imaanaya kooxdii Abel Crimson Sword waxayna yimaadaan xarunta ururka. Abel wuu u tagaa si uu ula kulmo asxaabtiisii hore, halka Ryu uu aadayo si uu u dhammaystiro habka diiwaangelinta. Markuu gudaha u galayo xafiiska madaxda ururka, Ryu wuxuu isweydiinayaa miyaan u qalmaa darajada D. Humaglaas wuxuu sharxayaa in Abel xitaa uusan keligiis u dili karin wiifar, marka haddii Ryu ku caawiyey dilka wiifarooyin badan, wuxuu qasab ku noqonayaa mid karti gaar ah leh. Markuu Humaglaas dhabarka ka taabto Ryu si uu u hambaliyeeyo, wuu yaabaa sababtoo ah jidhka Ryu aad buu u xoogan yahay inkastoo uu yahay sixir yaqaan. Markaas ayaa Nenah soo gasha iyadoo wata waraaqihii. Waxayna si rasmi ah isu baraysaa ka hor inta aysan bilaabin diiwaangelinta Ryu. Waxay ku bilaabataa waraysi gaaban, waxay weydiisaa magaciisa, waxayna xaqiijisaa inuu yahay sixire. Kadibna waxay weydiisaa curiyihiisa sixirka. Ryu wuxuu sheegayaa in uu yahay biyo. Markii la weydiiyo meesha uu degan yahay, Ryu wuxuu sheegayaa in uu hadda magaalada yimi. Nenah waxay u sheegtaa in 300 maalmood ee ugu horreeya uu Ryu deganaan karo hoyga ururka. Kadib waxay weydiisaa ma horay ayaad u gashay godad. Ryu wuxuu qirayaa in uusan weli gelin, markaasay u sheegtaa in ay jirto koorso bilow ah oo lagu barto sida godadka u shaqeeyaan oo ah cashar buuxa oo sahamiyaasha cusub loogu talagalay. Markii Nenah weydiiso haddii uu xiisaynayo, Ryu si farxad leh ayuu u leeyahay haa. Waxay u sheegtaa in koorsada xigta ay bilaaban doonto 2 maalmood gudahood, waxayna ballan gelisaa in ay isaga diiwaangelin doonto. Nenah waxay sheegtaa in qolka shirarka dabaqa 3 lagu qaban doono 3 subaxnimo.
markuu rayu yaabay nena waxay u sheegtaa in magaaladu leedahay saacad dadweyne si dadka ay wakhtiga ula socdaan. Markay dhammayso waraaqihii nena waxay tidhaa wakhtigii ayaa la joogaa aan bilaabo diiwaangelinta dhabta ah. Waxay rayu weydiisaa inuu gacantiisa saaro kristal qalabkii markiiba wuxuu soo saaraa kaarka ururka ee rayu. Nena waxay si farxad leh u sheegtaa in rayu si rasmi ah xubin uga noqday ururka sahmiyaasha. Rayu wuxuu eegaa kaarkiisa cusub ee ururka wuxuuna arkayaa xogtiisa, magaca, curyaha sixirka, biyo, jinsiyada, binyaadam iyo darajada D. Isagoo eegaya kaarka wuxuu leeyahay waan jeclahay. Nena waxay leedahay tani waa markii ugu horreysay oo aan arko qof sidaas ugu faraxsan marka la siiyo kaarka. Kadib nena waxay sheegtaa inay u diyaarinayso hoygiisa. Rayu wuxuu u sheegayaa in uu iibsaday dhar cusub iyo waxyaabo kale. Abel wuxuu kaftamayaa miyay macaan yihiin wax iibsigu. Rayu wuxuu qirayaa in ay tahay markii ugu horreysay uu si xor ah wax u iibsado waana la dhacsan yahay. Kadib rayu wuxuu go'aansadaa inuu sameeyo wax faa'iido leh wuxuuna bilaabayaa inuu barto luqadda deegaanka si uu si fiican ula falgalo dadka. Wuxuu sheegaa in xarfaha qaar ay u eg yihiin kuwa uu horay u aqoon jiray laakiin qaarkood way ka duwan yihiin. Si kasta ha ahaatee wuxuu ballan qaadayaa inuu barto si dhaqso ah. Maalinta xigta wuxuu diyaar u yahay inuu aado koorsadii barashada godadka taasoo si rasmi ah u bilaabmaysa. Rayu wuxuu subaxnimadii hore ku kacaa isagoo diyaar u ah koorsada sahmiyaasha cusub taasoo lagu barayo sida loo galo godadka dungeons iyo waxa laga filan karo. Wuxuu raacayaa jaranjarooyinka ilaa uu ka gaarayo qolka shirarka dabaqa 3aad. Halkaas wuxuu arkayaa sahmiyaal kale oo cusub dhammaantoodna ay yihiin kuwa xiisaynaya inay bilaabaan noloshooda cusub. Markuu koorsada ka soo baxo wuxuu gaarayaa xarunta hoose ee ururka wuxuuna arkaa Nena oo dhoola caddaynaysa. Nena waxay weydiisaa sidee ku dhacday koorsada. Rayu wuxuu leeyahay aad bay u xiiso badnayd. Markaasay ku tiraa hadda waxaad diyaar u tahay inaad noqoto sahmiyahan dhab ah. Rayu wuxuu dareemayaa kalsooni. Wuxuu leeyahay tani waa bilow cusub. Waxaan halkan u joogaa inaan la kulmo dunidan barto dagaalamo oo aan koro.